taleex oo xaruntii daraawiishta halkani waa falaad waa qasrigii madaxtooyadii daraawiishta oo u deganaa sayid maxamed cabdulla xasan gurigan sida runtaa waxay taleex ku lahaa guryo 4 qaybood kala ah qaybtani waxay ahayd qaybtii madaxtooyada gurigan intaan la dumin wuxuu ahaa guri dhowr biyaana ah oo runtii is saaran wuxuuna ahaa guri waqtiga marka loo eego sidaa muuqata salaaxan oo cad oo nidaamkiisii oo dhan dhammaystiran yahay laakiin iminka dhagaxii uun baa ka soo haray waana guri ay heleen dad markaa dacadow ahoo ka soo horjeeday halgankii daraawiishta qaybahan waxay ku tusaysaa halkan oo kale markaad eegtid salaankii guriga qaybta sare loo fuuli jiray halkan ahaa jaranjaradii oo halkan ka baxaysay kabacdina binada korkeeda sare iyo guryaha kor isu saaran laga geliyo waa kan casrigiisi markaad aragtid guriga salaaxan oo la hagaajiyay buu ahaa dhagaxani dib u ka soo baxay burburkii dabadiisi sidaa darteed sida halkan ka muuqata waa qayb kale guryihii ka mid ah oo aynu sii gelayno sida kasii muuqatana guryuhu waxay sii leeyihiin guryo kale oo qolboqol kasii dambeeyo oo halkan waxaa ku jira qayb qasri ka mid ah qayb kale qasri ka mid ah sidii madaxtooye ahaan jirta guryo iska sii dambeeya waa kan salaankii qaybtii cagta laga saarayay ee dabaqa sare loo fuulayay ee ku tusaysa inuu lahaa salaan waqtigan la joogo standardkiisu waa halkan ka muuqanayo waa meelaha ay ku tilmaamaan halayska ninkii fikado fariin geeyo falaad fasalkeeda sheeg gurigan aan joogno ha googo'a iyo sida uu xidhan yahay iyo qaabka uu leeyahay fasalkeeda sheeg nacaha darwiish baa kamid ah darwiishta ku heelin jiray ninkii fikado fariin geeyo falaad fasalkeeda sheeg meelasha inta la qasriga ma ahayn mid markiiba qofku ogaan karayo meesha qofku kaga jiro sida isu dawa marmarsan tahay iyo sida u kala sarsayso marka loo eego dadkana waxa iskaga yeera khaldan yaa dundumiyay waxa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo fakar yar oo ah diyaaradii baa dundumisay markuu diyaaradda ku dundumiyay ka bacdigeed 3 sanadood muddo gaaraysa ayaa ciidamadiisu intay yimaadeen gacan ula yimaadeen oo dundumiyeen huwantii uu watay sanacadaalihii markaan sida daraawiishta u caddeeyo ingiriisku qaybta labaad oo silsiladna waa qaybta muuqata taa ka saraysa ee buur saarana waa daar ilaalo oo waa xarunta ilaalada tii saddexaadna wuu baabiyey oo daawad la oran jiray xarunta farsamada ah ingiriis baabiyey oo cagta mariyey daraawiishtu waxay ahayd dhaqdhaqaaq gobonimo doon Soomaaliyeed oo runtii taariikhda marka la eego taariikhda ugu ballaaran ee Soomaaliya dhex taala ay tahay muddada qalcadan ay dhisnayd oo runtii dadku siyaabo kala duwan ay qoraalada ay u soo gudbiyaan marka loo eego laakiin waa muddo ka badan 100 sano waxaana qarnigan hore dhamaaday ee 20aad iyo qarnigan 21aad oo hadda ku jirno oo bilowga ah iyo qarnigii 19aad qayb ka mid ah bay geli kartaa waayo sida la cadeeyay 1800 iyo haddii la ahayd 95 ayuu deegaanka ka bilaabay in Cabdulla Xasan halkan daraawiish marka laga hadlayo maadaama ay ahayd dhaqdhaqaaq aad u ballaaran oo gobonimo doon dhul badan oo Soomaaliyana ay degtay haddana xuduntu waxay ahayd taleex xarunta daraawiish laga maamulayo ee laga hogaaminayo ee halganka iyo dhaqdhaqaaqa laga meelaynaya ayaa halkan ahayd shalay waxaan joognay qaybteena hore waxaan isku soo aragnay gurigii madaxtooyada ee daraawiish oo qasrigii madaxtooyada ahaa falaad
maantana waxaanu dhex fadhinaa qalcaddii ciidanka dhexdiisa ahayd qalcaddu surida runtii ka muuqata qaybtana waxay ahayd midigta haddeer inaga xigta dabaqadii labaad markaa dhismaheedu gaadhay binadii labaad ay saarayd qaybtan kalena waxay ahayd qabyo aan dhammaystirmin dhismaheedu oo markaa la wado qalcaddu waxay isugu jirtaa sida ka muuqatana baahi ciidan oo dhammaystiran waxay leedahay goobo ay ka dhex qodan yihiin ceelashii oo ceelashii qayb ka midii iyagoo dowray waa kuwa halan ka muuqda haddeerto aan la dayactirin halkan dabadeenna ana waa ceel qolkan dabadeenna sidoo kale qolalka halkan ka soo jeeda oo khudbaddan yar ku beegan waa ceel dhammaan meelahan goolka u samaysanna waa bakaarihii raashinka lagu kaysan jiray xusud waxaa mudan marka haddii dadka intaa leeg iyo dhaqdhaqaaqa intaa leeg ay ka socdeen meesha haddana hal mar la waayey maxaa sababay dadkaa waa la xasuuqay saanacadaalihii ingiriis iyo wixii la socday baa xasuuqay waxaana meeshan lagu laayey marka loo eego dad ka badan 100,000 oo qof ugu yaraan dadka la laayey ma ahayn oo keliya raggii dagaalamayey birimigeydadii baa la laayey caruurtii baa la laayey dumarkii baa la laayey kulli ummaddii halkaa joogtay ciidan iyo wax walba lahayd saanacadaalihii darwiish ingiriis iyo cawaamiirtiisii way laayeen markay ka gacan sareeyeen marka koowaad waxay u adeegsadeen hub ka duwan hubkii lagula dagaalamayey jamhadaha taasoo ahayd inay diyaarado gebigooda caalamka 6 sano muddo ka yar joogay loo adeegsaday waa awood ka weyn awooddii iyagu ay lahaayeen waxaa markaa ku caddaynaysaa burburkii iyo dhibtii loo geystay dhaqdhaqaaqi daraawiish guud ahaan gaar ahaan xaruntii daraawiish oo taleexa iyadoon wax magdhowa laga samayn ilaa hadda in ay ku maqan tahay ii sheegay saanacadaalahaas iyo wixii la socday runtii maanta marka loo eego taariikhdan wax saacado iyo maalmo iyo waqti kooban lagu qaadan kara maaha laakiin marka loo eego de waxa raadka yaala iyo sawirada yaala iyo seen uga hadlayna isuma dhigna waa wax u baahan qofka gudhiisu ka warramaya inuu daraasadii uu hore u hayay iyo xusuus dambe iyo wax isku labaay doonto waqtina uu helo laakiin goobtani waa goob hanti Soomaaliyeedna taalo tacab Soomaaliyeedna yaalo taariikh Soomaaliyeedna taalo la oran karana guud ahaan way ku filantahay ummadda Soomaaliyeed reer Taleex runtii waxay isku dayeen inaan la burburin dhagaxaas isagoo ag yaala bay buuraha 15aad u doontaan dhagax intii taalkooda way badbaadiyeen hal dhagax oo kamid ah lama qaato baan u baahan yahay magaalada dhisma ka soconaya ilaa iyo maalintii Cabdullaahi Xasan ka guuray ka bacdigeed intii la degay waa la dhisay inta haddii qof dhagax qaato waa laga dhigay sababtu waxay ahayd inaan taariikhdu lumin waana inta keliya ay qabteen ay ku dadaali kareen